بدأوا بكم صدق نوصل على كرني مرحبا maanta laakiin waxaan martiqaad weyn ugu sameynay asal majaajilistaha weyn ee reer Puntland ama Soomaaliyaba sida ay muuqata waxaan leenahay asal soo dhawow adiga iyo dhalinyarada kula socota asxaabta aad baan salaamaya waa Sidiyaabi oo ku sugan magaalada Carmo maanta oo legends wixii legends jiray oo Puntland legends jiray maanta isku yimaadeen sport hadii yihiin hadii ganacsato tahay hadii suxufiyiin yihiin hadii dhaqaatiir yihiin barnaamijka Geed Hoostiis waa soo arrimo ku qalanay سو محمد وداع sheegay maanta dal fiix tawaacunay saaxiibkii Maxamed Bilaal iyo tabadha iyo gudoomiyaha degmada Carmo ka dambeeyay barnaamijkaas aad u mahadsanyihiin dhalinyaro ka timid Boosaaso ayaa nagula sugnaa oo kamid ah Sacuudiga kiis in Umbriyaako oo legends dhaqaatiir la socoto waxa kamid ah dhalinyaro ka timid magaalada Qardho barnaamijka Geed Hoostiis aan wada nimid in waqti ku wada qaadano asxaabteeda sharafta leh runtii waxa la oran karaa si boqortooyo leh inoo sharfeen noo soo dhaweeyeen oo noogu qaleen waan la socotayna maalmahan aan joogay magaalada Carmo waa magaalo beeldaadshe ka kina ay sheegeen xoqday anigu dadku waxay yimaadeen magaalo qurux badan marsan baa joognaa Jurule sanadka ka salaamana Jurule waxa la yahay asxaabta aad baan jeclahay Ramadaan Kariim Ramadaan ka soo socda Ilaahay la gaarsiiyo wax ka haray waa saacado waxa la yahay Ilaahay xanuunkan baas oo belada ah oo corona virus Ilaahay naga qabto xanuunka belada Ilaahay naga qabto wax ka ala barinay waxa leenahay sharka kugu jiro corona virus oo China soo waxa leenahay idinka naga daay waxa cuna salaam sidii muufiga oo soo saaraan filimada cusub oo soo saaraan waxa cunaysa naga daaya leeyahay asxaabta aad oo salaami dhamaan dhalinyarada halkan ku soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada Carmo ee Geed Hoostiis oo ah barnaamij toddobaadle ah isla markaasina maalin kasta oo khamiis ah dhalinyarada halkan ay ku hilib qashaan oo ku arqashaan halkan neef dhayla ama laba neef oo dhayla ah ayaa lagu qashaa mirihii ayaa la gurtaa sidoo kale ruub ayaa la dubtaa oo burxabaal ah marka waxaan leenahay soo dhawaada guud ahaan dhalinyarada aqoon-yahanka ee Puntland ay isaga ka yimid gobolada kala duwan ee Puntland sida gobolka Bari Karkaar Mudug iyo Nugaal halkan nagula sugan maanta waxaan leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada Geed Hoostiis iyo barnaamijka qado iyo qaraaxo sidoo kale waxaan leeyahay oo barnaamijka maanta uu ahaa asad laf gublaq laf arinalaq marxin halkan maanta oo khamiis ah waxaan ku soo dhaweynaynaa qaybaha kala duwan ee dhalinyarada isaga kala yimid gobolada dalka qurba joog iyo runtii majaajilistaha weyn ee Asad Diyaabi barnaamijkan oo Geed Hoostiis iyo maanta qado iyo qaraaxo halkan lagu cunayay ruubkii Abu Dabaska ahaa urgi dhayla ah iyo gubkii oo najaraala oo dhirtan ka soo baxay dhirta hoosteeda aan ka guranayno aan halkan ku cunaynay majaajilistaha weyn ee Asad Diyaabina waa nala joogaa mudooyinkan Carmo ku sugnaa waxaan leenahay Asad Diyaabi soo dhawow Asad hadii ay cibta mudug tuman jirtay maanta waxa uu tuntay gubkii marka waxa ka soo baxday halka runtii carab jalaqsi ah Asad laf gubcun laf aricun marka waxa la asal laba lafood buu cunay maanta lafki gubtana waa tuntay urgi yar oo dhaylaana laftoodii waa dhuuxay marka waxa la soo dhawaada qado iyo qaraaxo
geed hoostiis. bismillahi rahmaani rahiim magacaygu waa Cabdiqaadir Bareedo waxaan maanta dalxiis u joognaa magaalada Carmo waxa aad noo soo dhaweeyay dad qiimo badan leh dhaqaatiir kulli dhammaan waxa weeye si fiican baan la soo dhaweeyay ma sha Allah waxa weeye waxaan ugu mahadcelinayaa sida quruxda noo soo dhaweeyeen waxaan markaan ugu mahadcelinayaa insha Allah marka khayarta halkaan isugu timid dhamaantiin waa idin salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullah mahad gaar waxaan u celinaynaa dhammaan dadka ehelka oo degan magaaladan oo la soo dhaweeyay si fiican qadaf fiican iyo jawi fiican iyo farxad iyo maartay rareyn ugu soo dhaweeyay marka halkaan waxaan la joogaa legend Asad marka runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa inta yaroo maartay uu noo sameeyay entertainmentiga geedka hoostiisa ma sha Allah waa maalintii ugu horeysay oo aan imaado meel saan oo kala ah qadana aan ku cuno waxaan isla hadalkii waxa dhameystiray Diyaabi maadaama ninka reer Mudug ah majaajilista caanka la joogo anagu waxaan idhaahnaa waxa weeye asxaabta salaameena inta beejkiisa ku xiran inta beejka dadaal ku xiran inta tabadha beejkiisa ku xiran laakiin youtuberada uu isagu ugu horeeyay legendiga majaajilista weyn awal waxaan isla gobolka Mudug ku tursay hadda laakiin ninkii baxsay bari uu soo galay laakiin garan ma sidoo ku laaban doona marka isaga hadalka dhameeyay nabiyina maxamed aad baan u salaamayaa khiyaarta nagu soo dhaweysay halkaan geedkan quruxda badan khaasatan geeduhu waa kala duwan yihiin geedka gobka ah mirahan soo daadanaya hooskan qabow ragga sheekaysanaya asxaabta majaajilaystayaasha sida Asad runtii waa ku diirsanay khiyaartii deeqadada noo sameysay oo marka qaadka sameysana aad baan ugu mahadcelinaynaa ugu horeeyay gudoomiyaha tabadha waxa weeye kaamiramanka weyn ama suxufiga weyn degmada Carmo oo programkan isagoo hadda daadihinaya runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa waana ku faraxsanahay runtii waa farxadana soo koobi karin waana maalin mudan inaynu sidaan oo kale isugu nimaano goos waxa weeye Ramadaankii baa soo dhow in farxad lagu galo iyo dhiirigelin waa moral support waa wax fiican oo dadka in dhalinyaradu ay sameeyaan aad ay u fiican tahay aad baan ku mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad waa Xuseen Axmed maanta waxa ku suganahay deegaanka Carmo halkaan waxaan u martaqaa maanta gudoomiyaha ku-xigeenka dhaqaatiirta ganacsatada dhalinyarada isku jira dhammaan dadka halkaan waxa ku kulmay dhalinyarada oo Asad Abu Diyaabi oo inta badan laga arko TV-yada waa ma sha Allah maanta dalka ku wada kulmay aad baa u soo dhaweynayaa si fiican buu noo soo dhaweeyay naftarkiisu maanta halkaan ku wada qaadanay qada sharaf leh anagoo ku duceysanayna Ilaahay inuu naga qabto xanuunka corona 19 ma sha Allah mar labaad iyo mar saddexaad dhalinyarada khiyaarta sharafta leh waan u mahadcelinayaa sidii magacaygu waa Axmed Xamed Faarax Mashiina maanta waxaan fadhinaa degmada Carmo aan joognaa togi waxaan joognaa marmarsi Joorle waxaan la joognaa gudoomiyaha degmada Asad Abu Diyaabi suxufiga weyn Dr. Cabdiqani akhyaarta kale dhammaantood maanta waxay waa maalin aad iyo aad runtii noogu weyn waxaanu fadhinaa geed gobo hoostiis oo aad iyo aad u fiican waxa way qada fiicanna waa ku cunnay waxaanu soo dhaweynaynaa Ramadaanka waxaanu suguutinaynaa bishii Shacbaan insha Allah waxaan rajeynaynaa khayr iyo caafimaad ilaahay waxa socdana ilaahay inuu gees naga mariyo Ramadaankana insha Allah khayr Allah nagu soo dhaweeyo gudoomiyaha ku-xigeenka suxufi dadaal tabadha ninka la yiraahdo wiyer asxaab badan ninka la yiraahdo Asad oo عشمادان كوكا ها مثلا جيت كان أنا كمريسنا وباشا الله هاد بنو فرح سنة هاي لما أنا ليدر هرعمه. أصلاً قاعدين يا جيت وسيس برامج جيت وسيس مكان سوا ولا وسيس كبير يركز ما أنتوا حنا لقوا عسمي مال أدي هذا قرحان وهاد شو إذا نقنعي وحين النقطة هاي عسمادي نو قرحان بنات أو كأرنا دوحين كان بري صانو بري أو تنويا ذا ما بيش نو فعلا وحن لكل النيدات هذه القلعة ولكن أسعد كمان أسد أو ديابي حقا يمدو نويمد صادق أحمد علي قندلي وقردك يمد جبان فارح عيسى يسوون قردك يمد أنه بوصاصان كنمد ركب ضنا عرمه ونلتشوغان دو حظ وشرولة مركب ودك وواقف